waxaa jiray heshiis ahaa ilaa iyo 25 qof inay wasaaradda soo diri karto oo masaakiin oo totally free looga dhigay qarashka maya bishi haweenka maalintii inay ahaato waxaa la isaga keenaa ilaa ay xuduudka oo Itoobiya iyo xuduudka ID waxa laga keenaa iyo Kenya IDN maxaa la dhahay xiriyaha qaxootiga Soomaalida waa joogan nagay Turkida waa inacda wax kala ma qofkan maskiin waa in laga cafiya marka waxay ku leeyihiin isbitaalka idinka xirmaaya sababtoo isbitaalka wixii ka soo baxa ayaa la geliyaa laakiin waa ku nabad qabnaa xildhibaanada iyo dadka madaxda waxaan ku dagaalnaa mararka qaarkood iyadoo la iska bixin kara la iimaanaha xasan cali khayra lagu dacweeyay waxa la yiri wasiiraan ahay aabahay laga keenay meelahaas dheer fiiri wali wuxuu seexiyay VIP room Turkida waa aragtay wasiir ma taa wasiir iska bixi wasiiradan waxay u maleeyaan kooda kale wasiirkii orda ii imaad war maxaa u seexisaan ku iraada ogtaa ina ani ii iimaanays because Turkida markaan u tago waxa ninkan wasiir waa iska bixi caqabadaha na haysto iyo dacwadaha wax laga sheekeyn karo dacwo ani waa u soo joog adigana welcome ma sahlana because qof walba wuxuu rabaa haduu iska bixin karo iyo haduu iska bixin karin in loo cafiyo kii laga keenay dhoobayo masaakiinka ah saddex cunuga waxa jirta la raadinaa in meel loo diro tigid iskama bixin karaan free loo helay waxyaalaha aan xalinayno ma aha wax caadi mararka qaarkood laakiin looma oga kan daawada asagana waa another big issue kaas waxaan rabi lahaa advocacy-giina inaan helno sababtoo ah fake and counterfeit in hal yiri under substandard ayaga naftirkooda dagaal lagu jira baarlamaankan ku dagaalamayna leeyahay fiiri baarlamaankan ku dagaalamayna micneeda waxa waay sharcigi daawada in la hagaajiyo la diidan yahay a bunch of people oo ka gain gareynaysa lacag helis maxaa baarlamaanka hal shay marka taabat nin walba 15 xildhibaan uu leeyahay xildhibaanada qofka wasiirka loogu nicib yahay laakiin gruuba yimid waxay igu dheen wasiirka ugu runta badanaata sababtoo waxa la igu yiri question time la ii wacay afgooya wax ka dhacen inta wax ka dhacen anaga waa ii iimaanay waxay leeyihiin waxaan rabaa daawo oo aan constituency-gay u geeyo daawada waxa waaye waliba markuu soo dhow yahay doorashada waa qof walba inuu daawo qaado isku soo masaw ana waxa oo ma bakaaraha ka gadatid ada is sharxay ani ma is sharxay wasaaradda sharxay wala dacwey xasan cali khayr adiga maxaa waa dacwada waxaan ku yiraahdaa rabti inaan wax sameeyo ha dhageysan iyo ka ani dhageyso hadii ayaga aad dhageysatid aniga waa iska baxaya horta xoog geeyo meeshan ku jooga xisaan kuma jooga